qisada guusha shirkad lagu iibsaday 4 milyan oo dollar oo deyn ah maantana hantideedu ay gaarayso 100 bilyan oo dollar lehna in ka badan 30,000 oo xarumood oo dunida dacaladeeda ah. Shirkadda ugu weyn ka ganacsiga kofeyga waa Starbucks. ujeedkaygu maahan kaliya inaan kuu soo gudbinayo qisada guusha Starbucks, balse waxaan doonayaa inaynu ka barano cashir ku saabsan sababaha guusheeda. Haddaba haddii aad leedahay qorshe ganacsi, muuqaalkan aad buu ku anfacayaa, waana barnaamijkeennii wax ka baro dadka guulaystay ee daawasho habboon. kun sagaal boqol iyo 73 maalin oo saaxiibo ah oo college wada dhigayay ayaa waxay go'aansadeen inay bilaabaan ganacsi ah iibinta miraha kofeyga. Arrintaani waxaa ka caawiyay mid ka mid ah dadka aqoonta u leh kofeyga, waxayna fureen dukaankoodii ugu horreeyay ee kofeyga. 10kii sano ugu horreeyay waxay fureen 5 goobood magaalada Seattle ee dalka Mareykanka. Xilligaa ma jirin xarun lagu iibiyo qaxwada oo karsan, balse qof kasta miraha ayuu gadanayay kadibna xaafadiisa ayuu ku karsan jiray, sababtoo ah ma jirin macaamiil badan oo daneynaya arrinta. mana jirin cid filanaysay in la furayo xarun lagu iibiyo qaxwada ilaa 1980kii. 1982 waxay shirkadda shaqaale ahaan u kireysatay nin xirfad u leh arrimaha suuqgeynta, waxaana laga dhigay madaxa suuqgeynta. waxuuna ahaa Howard Schultz. haddaba waa kuma Howard Schultz? waxa uu ku dhashay Brooklyn, New York 1953. waxauna ka dhashay qoys faqri ah. waxauna shaqo bilaabay isagoo 12 sano jir ah. waxauna iibin jiray jiraa'idka, kadib shaqooyin kale ayaa kaga dambeeyay. waxa uu ahaa mid jir ahaan xooggan, waxauna ku fiicnaa ciyaaraha, taa oo dhaliday in lagu abaalmariyo deeq waxbarasho. kadib markii uu kasoo qalin jabiyey, waxa uu 3 sano ahaa sales manager-ka shirkadda Xerox. kadib waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo shirkad Swedish ah, halkaasi oo uu iibinayay aaladaha guryaha iyo mashiinada kofeyga. waxauna ka iibin jiray kuwa ka ganacsada kofeyga sida Starbucks. markii Schultz ogaaday in shirkadani yari ay iibsanayso mashiinadiisa qaxwaha si ka badan sida dukaamada kale ee caan, Howard waxa uu go'aansaday inuu la kulmo milkiilayaasha Starbucks. waxauna aaday Seattle. kadib markii la ogaaday xirfadiisa, waxaa laga dhigay madaxa marketinka. 1982 ayuu ku soo biiray Starbucks. Howard Schultz waxa uu cuntami weyday in kaliya la iibiyo miraha kofeyga. 1983 waxa uu safray waddanka Italy, waxauna ka soo helay fikrad ah in qaxwaha la kariyo lana iibiyo. Schultz waxa uu u baahday 1.7 bilyan oo dollar si uu u furo goobtiisa ganacsi. milkiilayaasha Starbucks ayuu qayb ahaan ka amaaday lacagtii, intii kalena waxa uu ka amaaday bangi. bishii Abriil 1986 Schultz waxa uu ka furay xarun kofe Seattle. goobtaanina waxay u ahayd guul weyn oo uu gaaray. 300 qof ayaa booqatay maalintii koowaad ee la furay. sanad kadib Schultz waxa uu ogaaday in milkiilayaasha Starbucks ay doonayaan inay iibiyaan dukaamadooda warshadda shiida miraha kofeyga, maadaama ay maareyn kari waayeen howlaha shirkadda oo baaxad weyna. waxayna ku dhawaaqeen inay ku iibinayaan qiimo dhan 4 bilyan oo dollar. Schultz ayaa isla markiiba u tagay deyn bixiyaasha, isagoo ka dhaadhiciyay in ay siiyaan amaah cusub. arrinta sheegideedu ay xiisaa leedahay ayaa ah in la ogaaday mid ka mid ah maalgashadayaashii hore Starbucks uu ahaa Bill Gates, aasaasaha Microsoft. 3 aasaasay Starbucks waxay ka baxeen ganacsigoodii. Schultz waxa uu noqday milkiilaha kaliya iyo maamulaha Starbucks. 1992 Starbucks waxay noqotay mid weyn, waxayna gaartay ilaa 165 xarumood Ameerika oo kaliya. 1996 waxay furtay 15 xarumood oo hor leh. xarumahaasi waxaa ka mid ahaa xarumaheedii ugu horreeyay ee ka furta meel ka baxsan Mareykanka, waxayna ka furtay waddanka Japan iyo Singapore. koritaankeedu waxa uu ku socday si xooliya. kaliya 3 sano kadib waxa ay furtay 2,000 oo xarumood oo kale. sanadkii 2000 waxa uu Schultz ka soo wareegay CEO-ga shirkadda, waxa uuna u wareegay madaxa sare ee shirkadda. xilligaa waxaa furnaa in ka badan 3,500 oo xarumood oo ku kala yaala ilaa 12 waddan. intii u dhaxaysa 2000 ilaa 2007 Starbucks waxaa ku siyaaday nambar xoog leh. waxa ay kasoo dhaqaaqday 3,500 waxayna gaartay 15,000. celcelis ahaan sanadkii waxaa ku siyaadayay 1,500 xarumood. dakhliga kasoo xaroodana waxa uu siyaaday 2 bilyan ilaa 9.4 bilyan. balaynu ka warrabno maxaa sababay shirkadda sidaasi caan u noqoto ayna xarumo ku yeelato wadamo badan oo dunida ah. sababaha waxa ugu weyn shaqaalaheeda, waxayna ku xirtay guusha shirkadda dadaalka ay sameeyaan shaqaalaheeda. waxayna tiri haddii
oo guulaysta, shaqaalehna waa Starbucks oo guulaysata. taasi waxay meesha ka saartay nidaamka qof guushiisu inay ku xiran tahay qof kale khasaarihiisa, waxayna abuurta nidaamka ah aan wada guulaysano. sababta labaad ayaa ah xarunta ama goobta ay ku shaqayso. dhammaan meelaha Starbucks ka furan yihiin waa meelo ku habboon inay dadku ku kulmaan oo ah meel jawi degan leh, qofkii tagaana uu riyaaqayo. Howard Schultz hadalladiisa dhiirigelinta leh waxaa ka mid ah: riyadaydu waxay ahayd riyo weyn, waxaan ku riyoonayay nooc ka mid a riyada, taasoo ay dadka kala lahaayeen macquul ma aha. haddii aad aragto halkii aan kusoo barbaaray, sawirna ka qaado, waxaad oranaysaa macquul ma ahan in qofi halkaani ka yimaado uuna yimaado halkan, laakiin waxay noqotay macquul. sidoo kale waxa uu leeyahay, ma aha keliya inaad u dabaaldegto guushaada, sidoo kale u dabaaldeg qaladaadkaaga. waxaan kala jeedaa wax ka bedel qaladaadkaagii hore, samayna wax dadka kale ay leeyihiin macquul maahan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday kana qaadatay cashir kugu filan inaad qorshaha ganacsigaaga ka labalabayn, fulinta qorshahaaguna uu noqdo riyo rumaynteedu adiga ay ku sugayso. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.